walaal waa mahadsan tahay fursaddan qaaliga ah. Runtii waxay ila tahay beesha caalamku waxay dhinac markii la fiiriyo qaadatay kaalintii uga beegnayd nabadeyntii xasilinta dalka oo 20 sano lasoo dhaafay ay soo gardaadinayeen oo ay muruq iyo maskax iyo maal ku bixinayeen. kaalintii uga beegnayd ay qaateen oo ah in ay markii ay wax khaldami rabaan ay ifiyaan oo yiraahdaan war meesha loo socdo sax maahan ha laga soo laabto, iyagoo u jeeda in dastuurkiina uu cad yahay oo xilhaynta madaxdana uu ku cad yahay, isla markaasna u jeeda in baarlamaan isaguba waqtigiisa dhamaaday haddana hal aqal ah uusan go'aan isaga u gaara oo intaan la gaari karin, iyo natiijada ka dhalan karta go'aankaas oo ah runtii mid halis gelin karta dowladnimadii lasoo yabyabayay muddo 20 sano ah inay halis gelin karto. Marka runtii kaalintii uga beegnayd unbay qaadatay 20 sano lasoo dhaafayna dalalkaas aan saaxiibka nahay unbaa waddankeena runtii garab iyo hiili hoo la garab taagnaa muddadaas soo socotay oo maalinba maaragtay wixii aan u baahnayn nagu kabaayay. waayahay waxaad og tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya markii ugu horeysay waxay si toos ah ugu jeedisay ama u eedeysay dowladda aan walaalahanaha ee Djibouti, waana wax qariiba markaad eegto nidaamka dowladnimada Soomaaliya iyo dowladihii kala duwanaa ee isbedbedelaya dalka soo maray. ma ku muuqataa eedda dowladda Soomaaliya ay u jeedisay Djibouti maxay sataad is leedahay eedda intaan la eg ee xaaladdan gaarsiisay in dowladda Soomaaliya ay si toos ah Djibouti u eedeyso? runtii waa ayaan darro aad iyo aad u weyn in walaalaheen Djibouti oo Soomaalidu ay hiil walaal u taqaano, oo haddii cid ay jirto dowlad jirto abaal gashatay dib u dhiska iyo dib u yegileelidda dowladnimadeena dowladdaas walaalaha aan nahay oo ay gashatay, welibana wax alla wixii ay tabar haysa iyadoo dowlad yar ah isugu geysay in dalka ay walaalaha yihiin oo walaalkood ka weyn ah cagihiisa ku istaago 20 sano ka hor, in maanta eedayn intaas la eg loo jeediyo iyadoo aysan wax caddayna haba yaraatee aysan jirin oo lagu eedeeyo. runtii Djibouti ma ahan, anugu waxaan isleeyahay hadduu jiro hal dal oo Soomaaliya wanaageeda iyo ka shaqeeya horumarkeeda jecelna in Soomaaliya ay guulaysato horumarto haddii uu jiro, waa dalka Djibouti aan walaalaha nahay oo maalinna aan Soomaalidana soo faragashan waxa dhexdooda ka dhaxeeya, isla markaasna mar walba u taagnaa markii Soomaalidu wax si kor noqdaan marjic loo laabanayo 2000 dowladnimadii carta lagu soo dhisay, 2008 markii haddana maaragtay fargelinta Itoobiya ay timid haddana waa loo baahday mar kale waa lagu laabtay. 2 goor ayay dowladnimadeena Djibouti runtii soo dhisatay. runtii waxaa ii muuqata Djibouti hadda hadal gooniyaho ka soo baxayna ma jirin, oo wax alla waxa soo baxayay oo warqado ah ama mowqif ah waxay ka imaanayeen ama midowga Yurub ama UN-ta ama meelo kale. laakiin runtii waxaa ii muuqata ayaan darrada jirto waxay tahay in madaxweynaha xilkiisu dhamaaday uu maanta naf ka raadiyo in uu dadkii Soomaaliyeed oo awalba qayb weyn oo kamida uu iska hor keenay, haddana inuu dadkii Soomaaliyeed ama iyo dowladda Djibouti isku dayo inuu iska hor keeno. laakiin waxaa ilaahay mahadiisa dadka Soomaalida ahu inay arrintaas ay ku baraarugsan yihiin, isla markaasna ay siday tahay uga jawaabeen. haddaad fiiriso baraha bulshada oo aysan marnaba u qaadanin in Djibouti sumcadeeda iyo sharafteeda iyo walaaltinimadeeda la dhaawaco, ayna naga mudan tahay kaliya inaan u abaal marino wanaagii ay nagashatay oo dowladnimadeena iyo kaalinta ay ku leedahay. midowga Afrika ayaa hadda xaaladdan dalka uu marayo cakiran kala guurka ah iyo sidii dhinacyada la isugu keeni lahaa loo xil saaray inay xal ka gaaraan. waxaan la filayaa in ergey gaar ah loo soo magacaabo Soomaaliya oo arrimahan wax ka qabta dhexdhexaadiyada dhinacyada hogaamiyaasha Soomaalida ay hayaan. maxay kula tahay in 8 sano kadib Soomaaliya midowga Afrika uu siyaasadeeda gudaha soo farageliyo maxaa ka dhalan kara? runtii waxaan isleeyahay waa ayaan darooyinka aan ka kororsanay 4 sano la soo dhaafay kow ka tahay runtii hoosaan u dalacnay oo maanta in midowga Afrika ergey gaar noo soo magacaabaan waxaan nabaday in muddo kororsi sharci darro ah la isku dayo in la xalaalaysto. taasaa nabaday oo sababna u ah
ergey gaar ah naguma yara. IGAD ergey gaar ah ay leedahay. Midowga Africa wuxuu leeyahay ergey kaloo gaar ah oo matala AMISOM madax u ah. Midowga Yurub mid buu leeyahay. Maraykanku hadda gobolka oo dhan uu mid usoo magacaabay. Dalal badanaa si bilateral u leh midowga waxaan dhihi lahaa ergey gaar ah. Runtii ergey kaloo gaar ah oo soo kordhay waxay muujinaysaa xasaradda iyo khatarta dalka ka jirto in inta ay la eg tahay in caalamku ku baraarugay loona ciidan badsaday loona baahday in maaragtay intii hore joogtay oo ergey gaaradii hore joogay aanay ku filnayn loo baahday kuwa hor leh oo weliba madaxweyne dal kale qofka ahaan jira laga yaabo in lasoo magacaabo. Taasina waxay astaan u tahay maanta meesha aan soo gaarnay oo ah dalkeenna inuu halis aad u weyn ku jiro, dowladnimadiisii ay ku jirto, nabadiisii ay ku jirto. 20 sano maalgashigii lagu soo sameeyey dowladnimadeenna in maanta damac qof shakhsi uu leeyahay ay dhici karto in dowladnimadiiba iyo maalgashigaas 20 sano meesha looga saaro. Anigu waxaan isleeyahay intaas un bay runtii astaan u tahay. Maxaa yeelay midowga Africa hadda isagaaba aan ognahay culeysyada Africa oo dhan ka jira, iyagoo 20,000 oo askar ay already dalka ka joogeen, haddana inay u baahdaan in ay u yeertaan ergey kaloo gaar ah. runtii waxay caddayn u tahay khatarta dalka soo waajahday iyo sida loo wada qiimeynayo khatartaas. waayahay toddobaadii u dambeeyay waad og tahay markii muddo kordhintu ay dhacday kadib dhaqaaqyadii socday taliyihii booliiska gobolka Banaadir hadalka uu jeediyey iyo xilka qaadistiisii dabadeed waad la socotay iyo in uu u guuray xaafad ka mid ah Muqdisho oo magaaladu qalqal amni uu ka jiray. madaxweynayaashii hore inay ka guureen meelihii ay degnaayeen waad la socotaa. shirar kala duwan inay magaalada ka dhacayeen oo beelaha degan magaaladan ay yeelanayeen iyana waad la socotaa. walwal intee leeg ayaa kuu muuqda oo ku aadan in xaaladda meesha maanta ay joogto aanay sii taagnaanin oo ay faraha ka bacdo isku dhacyo iyo rabshadana ay magaalada ka dhacaan? runtii inta aad sheegtayba waxaa saldhig u ah waxaa meesha ka baxay Soomaalidu waxa ay heshiiska ku ahayd oo ah dastuurkan weli qabyada ah iyo dowladnimadaas 4 sanaba hore isu dhiibka ahayd ayaa meesha ka baxay. iyadoo dowladnimadaas weli ay jirto oo sharciyadii ay jirto ayaa madaxweynayaal diyaarada loo diidayay oo maaragtay gudoomiyaal baarlamaan xilalka si sharci darrada looga qaadayay ama dad siyaasiyiin la weerarayay ama muwaadin Soomaaliyeed Itoobiya loo dhiibay iyadoo weli dowladnimadii sharcigii weli taagan yahay. laakiin maalintii February 8 la gaaray 10 maalmood iyadoo aysan ka soo wareegan ayaa 2 madaxweyne oo hore oo midna uu xilka ku wareejiyay madaxweynaha hadda waqtigiisu dhamaaday, midna uu yahay ninkii ra'iisul wasaare u magacaabay, waxa uu ku xabadeeyay hoteelkoodii. meeshaas markii la gaaray dadka ka soo horjeeda maaragtay nidaamkan sharci darrada ah anu lama yaabani markii inay xaafadahoodii ku noqdaan oo ay lafahoodii u baqaan oo ay isku dayaan meel ay ku naftooda ku badbaadsan karaan inay aadaan. runtii lama yaabani. maxaa yeelay waa dhaqan iyadoo weli maaragtay walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweyne sharci yahay ayuu ku dhaqmaayay tallaabooyin halis gelin kara nabadda dalka. maanta oo sharciyadii ay ka dhamaatayna waxaa ka suurowda in waxaas in ka badan uu ku dhaqmo. ciidankii dalka xoogga dalka ahaa ama amniga dalka loogu talagalayna waxaan ognahay amniga dalka xoogga ma saaraane waxay ku mashquulsan yihiin in siyaasiyiin ay baacsadaan oo qaar in badan oo ka mid ah ay mas-uuliyiin dalkan ka soo noqdeen, weliba madax ay dalkan ka soo noqdeen. marka maanta haddii dalkeenu meesha uu joogo waxaa soo gaarsiiyey walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa suuragal ah in ay xaaladdu intaan kasii xumaato. mas-uuliyadda 1, 2 iyo 3 isagay ku dhacaysaa. maxaa yeelay isaga wuxuu go'aan ku gaaray wixii ummadda Soomaaliyeed dun yar oo ummadda Soomaaliyeed isku haysay oo ah dastuur iyo in la isla ogol yahay 4 sanaba mar in doorasho heshiis lagu yahay la qabto. isaga go'aan ku gaaray inuu dhexda manqas uga jaro oo markaas asagu isku tolo kursiga uu yiraahdo kursigan anuu igu fiican yahay mar haddaan anigu soo galay. taana cawaaqibteeda runtii ma wanaagsana, dalkeennan uma wanaagsana, gobolkan Geeska Afrika uma wanaagsana, aayaha dambe Soomaalida uma wanaagsano. oo markii horeba Soomaalidu waxay ka dirirtay waxay ahayd 21 sano nin askari hole anaa xoog idinku haysan kara. meeshaas ay Soomaalidu markii horeba colaadeedu ay salka ku haysaa.
tii mid lamid ah ayaa haddana la rabaa maanta ayaan darro in dalka loo celiyo marka walaalkeen madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waa u caqli celinaynaa waxaan leenahay walaalow ka soo laaba meeshaas ku soo laaba teendhadii dadkan walaalaha ah kala hadal arrinta doorashada taasaa ka wanaagsan dhabbaa hadda aad ku socotid waay maraykanka ayaad cabdiraxmaan muddo ku nooshahay aadna wada la socotaa siyaasadaha maraykanka ee afrika iyo soomaaliya intaba maxaad inooga sheegi kartaa siyaasadda cusub ee maamulkan Biden uu ku wajahayo dalkan Soomaaliya runtii dabcan de maraykanku horta 4 sano kooma ah ayuu ka soo baxay oo nin Trump la yiraahdo uu madaxweyne u ahaa oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa qas aad u weyn ka sameeyay marka hadda wuxuu ku jiraa 3 bilood oo ugu horeysay oo kasoo kabsashadii koomadaas si loogu noqdo siyaasadii lagu yaqaanay maraykanka ee arrimaha dibadda ee ku dhisnayd in markaas masaalixda maraykanka marka koowaad uu asagu fiirsado marka labaadna saaxiibadiisa uu garab istaago maalmihii la soo dhaafay dowladda maraykanka waxaa ka soo baxay siyaasadiisa ku beegan gobolka geeska afrika guud ahaan gaar ahaanna dalkeena taliyaha ciidanka africom ciidanka maraykanka oo afrika jooga ah wuxuu aqalka kongareeska maraykanka u sheegay khatarta ugu weyn ee maanta dalkeena ka jirta inaanay ahayn argagixisada al-shabaab balse ay tahay boobka sharci darrada ah ee xukunka dalka la boobayo inay tahay khatarta ugu weyn maxaa yeelay wuxuu yiri taasi waxa ay keentay in kursigii yaraa oo intii aan shabaab ka ahayn ay wada fiirsanaysay in nin uu asaga isku tolo taasna ay khatar ku tahay halista marka runtii siyaasadda maraykanku waxay ku wanaagsan tahay dal weyn waaye qiimeyn rasmi ah ayay ka samayn karaan qiimeyntaana waxaa sameeyey ciidankooda iyo wardoonkooda oo ka warqaba wax macaasha ka socda iyo diblomaasiyiintooda gudaha jooga waxaa kaloo intaa dheer in madaxweynaha maraykanka uu soo magacaabay ergey gaar ah oo gobolka oo dhan geeska afrika uu soo magacaabay warqadii lagu magacaabo waxaa ku qornayd sababta loo magacaabay ergeygaas Jeff Feltman inay tahay in xasaradaha gobolka ka jira ay yihiin kuwa sinta isaga wada xiran ha ahaato midda Tigray iyo Ethiopia ka taagan iyo Eritrea ha ahaato Sudan iyo Ethiopia waxa ka dhaxeeya ha ahaato biixireenkan oo Gerd oo Ethiopia iyo Djibouti iyo Sudan ay isku haystaan ama midda Soomaaliya ka taagan kulligood way isku xiran yihiin si markaas uu turxaan bixiyo ayaa loo soo magacaabay waana nin khibrad iyo way aragnimo dheer runtii u leh gobolka marka waxaan rajaynaynaa safiir cusub waa la soo magacaabay runtii isbedel inaan aragno ah in maraykanku uu diblomaasiyadiisii caqliga iyo cilmiga ku dhisnayd ay soo noolaato maadaama hadda uu koomadii ka soo baxay markaan eegto go'aamada beesha caalamka oo maraykanka uu ku jiro oo ay la xiriirta diidmada muddo kordhinta miyaan oran karnaa rajadii muddo kordhinta golaha shacabka uu sameeyey way soo afjarantay oo muddo kordhintaasi ma noqon doonto mid sii shaqaysa mise weli fursad ayaa furan muddo kordhintu markii horena miska sharci kuma fadhin oo si sharci darro ah loo sameeyo hal aqal oo asaguba waqtigiisu dhacay ayaa muddo kordhinaan samaystay miriyo isku caana shubay mid diblomaasiyadeedna ma haysan oo adduunku intiisa badan markii horeba warkiisa waa caddaa xitaa isagoo aysan muddo kordhintu soo bixin ay ku celcelin jireen inaysan aqbali doonin laakiin 3 ama 4 maalmood oo lasoo dhaafay waxaa si kama dambaysa irdaha la isugu dhuftay hankii ama damcii ahaa in laga dhex kalluumaysto midowga Afrika ama meel kale laga dhex kalluumaysto markii midowga Afrika uu si aan gabaad lahayn u cambaareeyay muddo kordhintaas sharci darrada ah maraykanka iyo midowga Yurub iyo qaramada midowga golaheedii amniga iyo ummadii kale oo Soomaaliya runtii danaynaysayna ay ka wada hadleen horta xaggii diblomaasiyaddana waa ka soo xirantay xaggii maaragtay buun waxaa la yidhi ninka xada meeshuu ku yeerin lahay ama durbaan ninka xada meeshuu ku garaaci lahay laska rabaa xaggii Soomaaliya iyo xamarna waa ka dhaqaaqi lahayo dadkii magaalada Muqdisho siyaasiyiintii oo madaxda dalkan ka soo noqday iyo dadka deegaanka u dhashayba si aan gabaad lahayn iyagana waxay u yiraahdeen annaga sharci darro in lagu maamulo diyaar uma nihin ama xoogna lagu haysto marka runtii anigu waxaan isleeyahay de ma hubo walaalkeen maxamed cabdullaahi waxaan rajaynayaa inuusan haddana qardajeex kala aadin weli wadaa furan rajaa weli jirta wadadaas waxa waaye teendhadii afsiyoone in lagu laabto teendhada waxa kaliya hadda kusoo kordhay waxay tahay awal 4 ergey gaara joogi jiray hadda 5 ergey gaar ama 6 ergey gaar ayaa fadhin doona oo kor joogteyn doona marka intay weli meeshaas joogto walaalkeen waxaan leenahay walaalow meeshaas kusoo laabo
maxaad kala socotaa warqadan shirkaddan LFA ee baraha bulshada lagu soo bandhigay dowladda Soomaaliya ay ka codsatay inay u loobin garayso sidii madaxweynuhu uu tagi lahaa Mareykanka ulana kulminaa senatarada culaysyada dhinaca Mareykanka ka imaanaya ee xaaladdan kala guurka la xiriirana wax looga bedeli lahaa. horta shirkaddan hadda madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu kireystay ma ahan tii ugu horeysay 4 shirkadooda 4 sano la soo dhaafay u shaqeynayay waajibkooda koowaadna wuxuu ahaa in ay ka shaqeeyaan in farmaajo iyo Trump la isu geeyo waa ku guul daraysteen hadda ogow madaxweyne xasan sheekh oo ka horeeyay madaxweyne Obama wuxuu ku qaabilay aqalka cad uu ku qaabilay madaxweyne Sheekh Shariifna dhowr goor oo Mareykanka tagay madaxda Mareykanka oo Hillary Clinton ay markaas uu intii uu arkay ayaa ugu weyneed marna Nairobi kula kulmay madaxweyne farmaajo intuu joogay xitaa wasiirka arrimaha dibadda qaabilaad rasmi ah oo Mareykanka kama helin hadda oo caradii ay isbedeshay oo xisbiga dimuqraadiga ahaa oo siyaasadii iyo diblomaasiyaddii miirka qabtay ee Mareykanka ay soo noqotayna mowqifkooda muddo kordhinta sharci darrada ahna uu cad yahay horta shirkad $150,000 oo dad masaakiin ah ay u baahan yihiin oo dadka xabar jooga masaakiinta laga aruuriyay ma keeni doonto madaxweyne sharcigiisu dhamaaday in dowladda Mareykanka intuu tago uu madaxda ay qaabisho horta taas ma dhici doonto waxa uga talagalay lacagtaas waa lacag wadkeedii galay oo dad masaakiina laga soo qaaday oo ay hayd in iyaga wax loogu qabto iyaga u baahan laakiin waa qayb kamid ah waxaan isleeyahay markii aad kursiga ku maaragtay aad u jeclaato xataa aqliga inaad ka xisaabtanto waad ka baxaysaa wax kastoo aan suuragal ahayn isku dayaysaa shalay midowga Afrika la yiri ama wax laga dhax kaluumaysan karaa maantana shirkadaha la kireystay berrina kuwa lamida inaan maqalno way dhacdaa meeshaas wax ma jiraan walaalkeen waxaan leenahay teendadii wax jiraan teendadii ku soo laabo maxay tahay leedahay marka sababta keentay in aanay suuragal noqon in madaxweyne Trump uu la kulmin ama madaxweyne Mareykan uu la kulmin madaxweyne farmaajo madaxweynayaashii horna suuragal ugu noqotay isku dayda tirada badanna ay u guul daraysteen inay hirgalaan sababtu maxay tahay dabcan de horta waxay ku xiran tahay sababuhu runtii waa badnaan karaan laakiin anigu waxaan isleeyahay waxaa saldhig ka ahayd horta 4 sano la soo dhaafay oo Trump uu carrada odayga ka ahaa Mareykanka asagaaba kooma isaga jira sidaan sheegay oo hadda siyaasad iyo diblomaasiyad isku habaysan oo ummadaha lagu qaabilo weyn ma jirin Afrikana si guudba uguma aragba inay muhiim tahay Soomaaliyana kumaba sii jirin oo hadda ahamiyad weyn runtii kama uusan soo qaadayn oo mar walba Soomaaliya waxa laga yaabaa inuu ka dhex arkayay siyaasadda arrimaha gudaha iyo gabadheena Congress womanka oo Ilhaan iyo dagaalka iyaga ka dhaxeeya iyo meelahaas oo marar badan ku dhex fiirin jiray laakiin shirkadaha sababta kale oo muhiimka waxay tahay shirkadaha uu farmaajo kireystay laba kamid ah waxay ka yimaadeen gobolkii uu deganaa gaar ahaan magaalada uu deganaa Buffalo New York waxayna ka tirsanayeen xisbiga Republicanka ah laba kamid ah shirkadahaas nimankii madaxda u ahaa waxay ka mid yihiin dadkii dambiyada dowladda Mareykanku ay ku heshay sanadkii la soo dhaafay wali Trump oo madaxweynaha dambi lagu helay inay si sharci darro ah iyo waxyaabo badan oo isdabamarsiin ah iyo musuqmaasuq badan ay faraha kula jireen marka waxaa sabab u ah xataa dadka la dirsanayo waxaa la rabaa dad sumcad iyo sharaf iyo karaamo ku dhax leh Mareykanka oo wax ka gooya aqaladooda inay keenaan laakiin niman waxaan ognahay walaalkeen farmaajo inuu xisbiga jamhuuriga Republican ka tirsanaan jiray niman saaxiibay ahaayeen buu shaqadaas siiyay yiri isoo qabta lacagna ku siin jiray oo aan ognahay $50,000 bishiiba in lagu siinayo muddo 2 sano ka badan 4 shirkadoodna 4 sano inay isbedbedeleen haddana midaana hal bil $150,000 lagu howlgeliyay iyadana uu natiijo weyn oo ka soo bixi doonta runtii ma lahan sababtoo ah mabdi'iyanaaba looga soo horjeedaa wax meesha ka dhacay aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cayinte wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta kana mid ah madaxda macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage oo qadka Skype-ka toos ugu warramaya Cabdiraxmaan aad baad u mahadsan saaxiib